Asalaamu calaykum. Qawaaniinta ugu yaabka badan dunida waxaa jiro qawaamiin oo qofkii maqlaa ay ku reebayso liyaab ama ay ku noqoto qaadan waa. Kuuriyada Waqooyi xukuumadda ayaa kuu sheegaysa qaabka tinta aad u jaranayso. Kuuriyada Waqooyi ayaa ah dowladda ugu badan ee qawaaniinta la yaabka leh ay ka jiraan. Tusaale ahaan, cid kale gaari ma yeelan karto qof shaqaale dowladeed ah amaba ciidanka dowladda u shaqeeya mooyaane. Qofna xaq uma laha inuu tintiisa sida uu doono u jarto. Waxaa timaha u goosan kartaa sida sharciga ah ee xukuumadda ogoshahay oo qura haddii shakhsi uu dembi galo. Qoyskiisa oo dhan ayaa u qoolan ciqaabtana la qaybsanaya. Waxaa la ogol yahay 3 telefishin oo keliya oo ku hadla codka xukuumadda. Riwaayad kasta iyo hees kasta oo aan ammaan dowladeed ku jirin lama ogola. Ciddii soo qabanqaabisana arrinkaa waa lagu maxkamadaynayaa. Internetka la galo waa mamnuuc oo qaynuunku ogoleen. Waxaa adeegsan kara oo qura ciidanka iyo qoysaskooda iyo ardayda dhigata jaamacado gooni ah oo si gaar ah loo soo xulay. Qalabka kombiyuutarada Kuuriyada Waqooyi kuma shaqeeyaan Windowska ee ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada aan adeegsano, waxayse ku shaqeeyaan nidaam ay Kuuriyada iyada samaysay oo gaar u ah loona yaqaano Red Star Korea. Qofka dalxiiska ah ee booqda Kuuriyada Waqooyi waxaa la raacinayaa shaqaale dowladeed oo tallaabo la soconaya kolba waxa uu qabanayo. Haddii uu xitaa doonayo inuu sawir selfie iska qaado, waa inuu kala tashadaa qofka la soo raaciyay. Muwaadinka u dhashay Kuuriyada Waqooyi telefoon dibadda ah kuma hadli karo isagoon ogolaansho ka haysan xukuumadda dalkiisa. Haddii kale waxa uu la kulmi karaa dil, sida qabsatay dadka qaar oo naftooda ku waayay arrinkan. Ugu dambeyn, muwaadinka u dhashay Kuuriyada Waqooyi looma ogola inuu u dhoofo dibadda. Haddii lagu qabto isagoo si dhuumalaysi ah ku socda, waa la xirayaa islamarkaana waxa uu wajahayaa xukun dil ah. Dalka China lama ogola in ruuxda qofka dhintaa ay isku soo matasho nooc kale geerida kadib adoona ka haysan ogolaansho xukuumadda. Waxaa jira dunida diimo qaba in ruuxda qofka ay isku soo matali karto waxyaabo kale geerida kadib, sida qofka inuu mas noqon karo, noloshana ay ku soo noqonayso iyadoo sifo kale oo aan bini aadam ahayn. Waa fikrad la yaab leh oo dadka kale agtooda aan laga aqbalin, laakiin ay aaminsan yihiin dadka qaar. Waxaase taa ka yaab badan in xukuumadda China ay mowqifka arrinka waxay u diiday sanadii 2007 suufiyada gobolka Tibet inay wax isku soo ekaysiiyaan haddii ay ogolaanshiyo ka haystaan xukuumadda mooyaane. In nolosha qawaamiin laga soo saaro waa caadi, laakiin waxaa yaab badan in geerida kadib qawaaniin laga sameeyo. Isla dalka China, baarinimada waalidku waa waajib. Wiilka dhalinyarada ah oo qoyskooda gooni ugu nool waxa uu ku qasban yahay inuu qoyskiisa si joogto ah u soo booqdo, kalana qayb galo munaasabadaha diiniga iyo kuwa kale ee waalidka lagu raaligelinayo. Scotland waxaa ka mamnuuca musqulaha dadweynaha. Waxaa jira qaanuun ka dhaqangelay dowladda Scotland oo mamnuucaya in musqulo dadweyne laga dhiso wadooyinka. Muwaadinka Scotland haddii uu musqul u baahdo waxa uu xaq u leeyahay inuu gargaraaco guriga ugu dhow ee uu musqul ka heli karo. Qofka guriga iskale uma diidi karo taas. Haddii kale waxa uu wici karaa booliiska, dacwadna wuu ka gudbin karaa. Ugu dambeyn, dalka Brazil, xaaskaaga oo aad iska celin karto muddo 10 cisho ah gudahood. Ilaa 2002 dalka Brazil waxaa ka jiray sharci ogolaanaya in ninku uu xaaskiisa iska celiyo oo qoyskeeda dib ugu celiyo marka uu arko inay gabar ahayn, laakiin waxaa waajib ah in muddo 10 cisho aanay ka badan muddada celinta. Waxaad naga daawanayseen Rajada iyo Maanta. Haddaad ku cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe dhahdo, sidoo kale gambaralka aad rugmato si aad u noqoto saaxiibka dhow ee Rajada iyo Maanta. Maanta waxaan soo qaadanay sharciyada ugu la yaabka badan ee ka jira dalalka qaar. Intaan ku kulmayno mowduucan midkiisa xiga, waxaan iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.